halkaad si live ah ma si toos ah nooga daawanaysiin waa TV-ga caalamiga ee Boost TV ama bartaanu internetka ku leenahay shabakada caalamiga ee www.hagenews.com. daawadayaasha sharafta iyo qadarinta naga mudano waxaanu maanta nii soo gudbin doonaa khudbadii Sheekh Xasan Dihaye Axmed oo kamid ah culimada waaweyn ee gobolka Awdal kamid ahna khatiibka masjidka Harawe ee bartamaha magaalada Boorama ayaa khudbadiisii waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo kamid tahay baaq cod dheer uu ugu diray qurba joog ka soo jeeda gobolada Awdal iyo Sale inay ka qayb qaataan dhismaha dekada Luqhaye. Sidoo sheekhu ka hadlay waxa uu yiri sida tan kale anu waxaan joogaa maarta xafiis la yiraahdo Arda oo lagu magacaabo inuu dekad ka sameeyo Luqhaye ana ka gudoomiye aniga idin hor jooga 2 sano xafiiska fadhiya wali dadkeena wax dekada ku soo dhiirado oo yiraahdo waxa $1,000 iga qabo $500 iga qabo bal $100 iga qabo ma hayno haba yaraatay hadalka noogu badanina waxa weeye bilaabo horta daydinku kolka bilowdaan ayaan maarataanay lacagta bixinayna way fiican tahay laakiin maxaan hayaan ku bilaabaa waa inaad ogaataa mesela inta qalab ay meeshaas u baahan tahay intay maal u baahan tahay intay shaqaale u baahan tahay waxa dhan lagu xisaabtamo way dadka marka xitaa gudiga dibad waxa lagu leeyahay kolkaan nagu siigada aragna meesha la dhisay aragno wax waan bixinaynaa bay leeyihiin dadkeenni shaki baa sa ku jiraan u maleynaya wax badan bal isweydiiyo meesha horta ma la ogol yahay meesha dawladdu ma ogoshahay beelaha kale ma ogol yihiin Jabuuti ma ogoshahay waxa la weydiinaya waa shay qariib ah nin meesha u deganaa maarataanay waxaan ka samaysanaya ma la ogol yahay haddaba in la ogolaadaan idin sheegaya maanta khayr allah say madaxweynuhu dooraad ninkii arkay baa arkay haddii website-yada la soo gelino qoladii wariyaasha ay soo gelin waayeenna iyagay jirta ama qarsadaan ama iska daayaan laakiin madaxweynaha Axmed Maxamed Silaanyo dooraad si fiican buu dhagaxa u dhigay waa dekadii Luqhaye guud marka ku hadda ay maqlay oo gudaha joogay iyo ku dabada iga maqli doonaba madaxweynaha sidaas oo dhagaxa u dhigay maaratay wixii aan ugu dareena waan ka daba tagi doonaa way weydiisan doonaa ilaa shicibkiisa baan nahay laakiin dadkiisa kiciyana lahaay shakisana ya waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland uu dhigay dekadii Luqhaye dhagaxii buu dhigay barmay maqlaysiin su'aal dambe yaa la weydiin dhagaxii buu dhigay anu nin ilaa 60kii kolkii calanka la helay inuu garaad lahaabana oo soo jiray madaxweynaha wali gobolka Awdal intuu laami afka u soo galiyo isku soo xidhay tii Hargeysa ka imanaysay Boorama soo gaarsiiyay haddana tii kalena dhagaxa sii dhigay Carragarnuug baan daraad ku sii marnay Carragarnuug halka stopta ayuu tii xagga u soconaysay Jabuuti u baxaysana dhagax buu dhigay dekadina dhagax buu soo dhigay waxa laga yaabaa dadka qaarna ay haystaan wax walba inaan mucaaradun ku ah odaygaas uu wanaajiyo madaxweynuhu u horeeyay ee intaan Boorama joogay anu intaan dal foolo ku maqnaa mooyaan meel kale ma tagin anu intaasoo sanadood waa dhowr 60 sanadood madaxweynuhu u horeeyay laamina keena tu kalena dhagax dhiga dekadna dhagax dhiga uu wanaajiyo waxaan leeyahay intaas aba niyad noo dhistay jazakallahu khayran ciidina hagaajisana waxaan oranaa ahsanta wajazaa'u khayran baan oranaa ciidina xumaysana maxaan oranaa wajazaa'u sayyi'atin mithluha halkaas ay ku joogaysaa maanta marka waxa weeye waxaan idinku adkaynayaa dekadaas laamida wayda kolba kilometer wala wadi un kolba wixii la helo laakiin dekadaas waxay u baahan tahay qofka ariilaha ah qofka bacmasharka ah qofka beerayda ah ka ardayga ah ka shaqaalaha ah ka maartay wax kasta oon hayno oon uqoon ka dayno waa inaan dekada ku tabarucnaa gelinaa waari mayside war ha ka haro
dekadaasaan berigii wax ku darsaday qurumaha soo socdaa ka faa'iidaysan doona waxaa laga yaabaa anu intaan dhisayo inaan gaari doonin kale ilaahay baa garan laakiin waxaa laga yaabaa carruurtaydu inay ka faa'idaystaan way dhici kartaa marka waxa weeyaan waa idinku soo socdaa ardayna dhaafi mayno albaabna dhaafi mayno نيجي نديدنا ونحرينا. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه